بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan idin la socodsiinayaa inta case ee soo kortay 24 saac ugu dambeeyay waxa soo kordhay 64 waxa rag ah 45 waxa dumar ah 19 banaadir waa 33 inta laga helay Somaliland waa 16 galmudug waa 8 koonfur galbeedna waa 7 dadka da'dooda waxay u dhaxaysaa inta ka yar 20 sano waa boqolkiiba 2 20 ilaa 39 waa 54 40 ilaa 59 waxay u dhaxaysaa da'dooda waxay numberka waxa waaye 27 60 sano iyo inta ka weyna boqolkiiba 17 tirada guud ee inta case oo laga helay wadankeena waa 1421 waxaa geeriyooday 24 saacadood ee ugu dambeeyay hal qof oo ku geeriyooday gobolka Banaadir Ilaahay u naxariisto tirada guud ee dhimashada waxay noqonaysaa 56 waxaa ka bogsaday 4 qofood bogsashada guud waxay gaaraysaa 152 aan ku celcelinna mar walba aan ku dardaaranno in cudurkan loo baahan yahay in aad loo xakameeyo dadka inay taxadiraan inay takhaatiirta wacdaan inay nambarada loogu talagalay wacdaan wacyigelin haday u baahdaan hadii ay xanuunka dareemaan iyo hadiiba ay macluumaad zaa'id rabaan waxa jira dad takhaatiir ah professional loogu talagalay inay arrinkan tala fiican ka bixiyaan in lagu dadaalo in socodka la yareeyo banaanbaxa la yareeyo haduusan daruuri ahayn in ma aragto qofka markuu banaanka baxay afka uu xirto gacmaha mar walba ay dhaqan yihiin saabuun lagu dhaqo ilaa ugu yaraan hal 20 second in ma aragtay meelaha ciriiriga aanan la gelin la tagin la iska yareeyo in dadka xanuunada chronic qaba gooni il gooni la siiyo oo laga ilaaliyo dadka kale si aysan isu qaadsiinin in dhalinyarada oo aragno da'da aad u cudurka u haleelaya inay taxadaraan waa dhalinyar yihiin Ilaahay caafimaad ha siiyo laakiin inay ka taxadaraan naftooda iyo nafta reerahooda iyo dadka ay jecel yihiin iyo bulshadeynta waajiba ka saaran in mar walba lagu dadaalo oo laga taxadaro cudurkan sidii loo xakameyn lahaa aan ugu guuleysan leen hadii alla idmo waxaan rajaynaynaa Ilaahay inuu aafadiisa dhibkiisa naga haayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh